Halkan waa Xogsiin Media ku soo dhawaada muuqaal cusub. Salaaxudiin Al-Ayyubi wuxuu ahaa hogaamiye Muslim ah, waa asaasihii dowladdii Ayyubiyiinta. Salaaxudiin waxa uu ku dhashay magaalada Tikrit ee waddanka Ciraaq sanadkii 1138 miilaadiga, laakiin Salaaxudiin ciyaalnimadiisa waxa uu ku qaatay magaalada Dimashq. xilligaas Dimashq waxaa ka talinayay boqor la odhan jiray Caadil Nuurudiin Maxamed Saki. Dhallinyaronimadiisa waxa uu ku biiray ciidamada boqorkaas, kadib boqorku waxa uu u diray waddanka Masar. ciidamada uu ku jira ee loo diray waddanka Masar waxaa watay adeerkii markii uu dhintay awooddii maamul ee ciidanka waxaa la wareegay Salaaxudiin, waxa uuna noqday wasiirka dhabta ee dowladda Masar. halkaasna waxa uu ka bilaabay dagaal uu la galay Saliibiyiin sanadkii 1169 miilaadiga. Salaaxudiin waxa uu aasaasay dowlad loo yaqaan Al-Ayyubiya. kadib dowladdaasi xilligii ay sii fidaysay ee ku fidisay gudaha Suuriya, Salaaxudiin waxa uu intaas la socday dhaqdhaqaaqii Saliibiyiinta, isaga oo rajeynaya in uu mar uun burburin doono. markii ugu horeysay oo weeraro Saliibiyiinta waxay ahayd sanadkii 1177 miilaadiga, waxayna iska hor yimaadeen ciidankii la odhan jiray Saliibiyiinta. isla markaas Saliibiyiinta iskama aysan caabin ciidamadii Salaaxudiin oo way jabeen. kadib waxaa dhacay qalad ka yimid ciidamada Salaaxudiin oo waxa ay ku jeesteen hantidii ay ka qabsadeen ciidamada gaalada. isla markaas waxaa dhabar jebin ku sameeyey ciidamo uu wato hogaamiye gaal ah, waxaana guuldarro la kulmay ciidamadii Salaaxudiin. laakiin Salaaxudiin isma dhiibin ee waxa uu mar kale dib ugu soo noqday inuu weeraro imaaradii gaalada, waa uuna ka adkaaday. Salaaxudiin Al-Ayyubi ayaa ah hogaamiye xoreeyey magaalada Qudus. Salaaxudiin Al-Ayyubi waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah halyeeyada Islaamka ee soo maray taariikhda Islaamka inta uu jiray, waxa uuna geeriyooday taariikhdu markay ahayd 1193 miilaadiga. Allaha u naxariisto.